laakiin haddana waa wasiiraddii arrimaha dibadda oo hadda dadkii qaadacay oo ka soo horjeestay maxkamadda go'aankeeda oo aadka u xanaaqsanaayay ku jirtay haddana waa maaragtay ii sheeg dowladdaas kenya u shaqaysaa oo kenya ku dhalatay oo kenya ku barbaartay oo waxa waaye idinka idinla mid tahayoo waddankaasay sheegataa taa marka laga soo tago xiriirka gobonnimada marka laga soo tago ilmaada riyaalow labada dal waxa waa laba dal oo iscaawiyey dowladdii hore ee maaragtay ii sheeg soomaaliya waqtigii aadan cadde 1963 xornimada qaadateen 1960 aan qaadanay aadan cadde asagoo hal sano waddanka joogin uu maaragtay kenya dood u furay ah maaragtay ii sheeg xornimadeeda inuu ka hadlo in maaragtay kenya ay xornimo qaadato oo ka baxaan dadka maaragtay ii sheeg ajnabiga ee markaa ku jiray colonizing ku haystay taa marka laga soo tago idinka naftirkiina abaalaad geysateen oo 1991dii kala irdhowga markuu dhacay aad baad u soo dhaweydeen soomaalidii maaragtay soo qaxday iyo kuwii iyo dowladdii soo carartay jabkii dee maaragtay dhacay soomaaliya dhexdeeda dadkii idinka casuumay oo soo dhaweeyey idinkaa maaragtay xeryaha u furay waxa waaye daani aramoy dadkii soomaaliyeed ee kala irdhoobay dadkii waddankii soo dhaweeyey oo maaragtay xerooyinka u furay waxa waaye kenya ahayd ilaa haddana xerooyinku way furan yihiin ganacsiyada ugu waaweyn nairobi dadka iskale waa soomaali waxa waaye markii baahi dhacdo ama dhib dhaco maaragtay kenya gudaheeda dadka gurmadyada ugu badan geysta waa soomaali wiilashii maalin dhaweed maaragtay markii la galay westigeed markii la galay muxuu ahaa safka hore ku jiray idinkoo kale ahaa maanta kenyatinimada sheeganaya haddana dhiiguna soomaaliga yahay wiilashii meesha galay maaragtay argagixisada la dagaalamaya waxay ahaayeen ciidamo soomaaliyeed oo dee maaragtay laakiin kenyaan ah oo dowladda kenya hoostaga haddana maaragtay dee dhalashadooda gabadhaas ku kalay ahaayeen oo dadkii geesiyaasha ahaay oo westigeed galay wiilal soomaaliyeed oo maaragtay dowladda kenya u shaqeeyay ahaayeen marka nimayo xiriir aad u weyn baa jira maaragtay labada dowladood ah ninan maaragtay ii sheeg wuxuu asaga leeyahay kama tanaasulo marka soomaaliya waxeedii way soo dhacsatay weliba aniga waxaan aaminsanahay hadda badda keliyana loo jaray laakiin badda dhulka ku teedsan oo dhan kenya maaragtay loo xagliyey ayada naftirkeeda inaan ka daba imaan doonay u badan tahay marka wixiina waxaa qurux badan sidaan annagaba sharciga ugu raadsanay annagoo awoodno inaan xoog ku raadsanno sidaan annaga sharciga iyo maaragtay kala dambeynta dunida maanta ka jirta ee qalinka wax lagu kala dhacsanayo aan ugu raadsanay waxay ku qurux badan tahay inaad qalin wax ku raadsataan oo dee waxyaabaha aan xeerinayno iyo abaaladii aad geysateen iyo kuwii annaga aan idiin geysanay oo kuwa idinka aad geysateen ay ka mid tahay 1991 dadkii aad soo dhaweyseen ee soo cararay waxa waaye ii sheeg oo qaybta ay ka ahayd nimayaho waxa waaye abaalka annagoo hayna baan haddana waxaan leenahay kama tanaasuleyno waxa annaga aan leenahay waxaanu ku raadinaynaa waddada saxan marka idinkana waxaan idin leeyahay waddada saxan ku raadiya waxaad idinku rabtaan oo maaragtay waddada qaldan ha la marinina maaragtay ii sheeg meel tomorrow aad ku jabi kartaan oo wax faa'iida idin ka soo qaadi karin annagoo wadana warqaddii sharciga ahayd ee dunida noo soo socday haddana wadana maaragtay xaq u dirinimadii iyo maaragtay soomaalinimadii oo idinla dagaalmo dhulkii كرامة ميكروفون Soomaaliga markaa ka hadla male maqlamyaa شاكرو أم جوكر وحسوق وتندعي سن على الناس وقرن war hadda male maqlaa ku soco waa la maqlaa soo Waxa lagu maqlaa anigu dhanka Nairobi soo aaday Muqdisho aaday dhanka u soo ku boqo kaada hadda ninka ka daa qaske ku soco qadka dhinaca kenya xanaaqsan nairobi aan ku suganahay qadkaa xanaaqsan marka nimayahow waxa waaye hadalka waa soo koobaa nimayahow waxa waa xiriirkaabaa jira maaragtay mudgala caroolo mudgelid aqare fiiri kala dambeynta iyo nidaamka dowladnimada wax ku maaragtay dowladaha wax ku raadiya oo digdigtan joojiya annagu waxayna waa soo dhacsanay wax allaale wixii kaloo naga maqana war maanta waxaan daba taagana idinkaa idin daba taagana gabadha hadda soomaaliga waa daba taagana waxaan diyaar unahay inaan soo celino ayada iyo ayadeed iyo awowgeed iyo ummadii oo dhan iyo dhulkii ay ku dhalatay wixii oo dhan inaan soo celinaan diyaar u nahay idinka naftirkiina inaan soo celinaan diyaar u nahay marka howshu ma dhawa warqadda maaragtay sharciga ah ee kala dambeynta ah ee maxkamadda ah soomaali waxay diyaar u tahay iyadoo midaysan inay waxeeda soo ceshato ama somaliland dhaha ama soomaaliya dhaha idinka idin taalla annagu waa midaysannahay markay gacan shisheeye imaato waxyaabaha loo kaliga annaga dhexdeena aan isku haysanno waa gooni
wixii aad xeerin kartaan xeeriya, waxaan xeerin karnaa xeerinaynaa. marka horena noo wada su-aashii jokorow adiga aan ku weydiiye ahayd maxaad ka damacsantihiin ganacsiga iyo ma aragtay isu dhex socodka labada dowladood ilaa hadda igama aada jawaabin, waan idiin soo celiyay. waa maasan tahay hadalka saas u soo koob niyo horta su-aal bay weydiiso waxay tiri ganacsiga horta ganacsi haddii la dhaho annagu Soomaaliya waxaan uga baahannahay ma jirto sababtoo ah horta qolkaa fulo inoo dhaha waxaa maadaama waxa weye doodan ay dood cilmiyeysan tahay niyo horta runta aan isu sheegno ganacsi haddii la dhaho Soomaaliya annaga waxba uguma baahnin Soomaaliya ayagaa nagu nool magaalooyinkeeda tusaale Nairobi iyo maaragtaa ganacsiyada ugu waaweyn ee Islii Soomaalida inay aad u joogaan oo aad ugu ganacsadaan annagu haddaan Kenyaan nahay dhulkiin intaan nimaano ganacsiyo kama furano waan idinku nool marka waxaana dhex joogo oo maaragta wax nooga baahan waa idinka haddii xaalku xumaado waxa problemka ugu badan soo gaaraya waa idinka annaga problem nama soo gaarayo marka taa marka laga soo tago no horta waxaa soo hadal qaadeen badda horta Soomaaliya baddaan haddii hadda la xataa farta la idinka wada saaraya maxay ka samaysan kartaa maxay ka soo saaran kartaa maxay ka qaban kartaa ebel bay waxay haysatay xeebta ugu dheer ee maaragtay geeskan Afrika waxba way ka soo saaran weydo maaragtay way ku fashilantay waxna kama soo saarato dee adigu haddaadan wax ka soo saaran karin dadka cilmiga iyo maaragtay isku tashtay ee midoobay ee maaragtay dhulkooda u tashtay ee wuxooda hagaajisteen idinku intaas cunayseen oo maaragtay isku maqneedeen oo maaragtay qabiil iyo waxaan loo joogin isku maqneedeen oo iskala qaybiseen oo nin walba qolo walba intay qolkeeda soo xiratay dhankeeda aaday annagu dee dhulkeena waa hagaajisanay dadkeena waa toosisanay maamulkeygana waa noo dhisnaa wax badan baan qabsanay kistaan yar aan leenahay baan badda nagu soo aada baan maaragtay ka dhisanay dekada waa caalami ah waxaan dhisanay waxa weye horta muudina ha marka horumar badan baan ka sameynaa annaga waxaan dhoofinaa horbalmuud noo galo horta inaad horta annagoo saas sameynay oo dhulkeena intaa maaragta aan ka faa'iidnay idinku intaasa maaragta dhulkiina waxa waa kasoo saaran weydeen idinku xeebta ugu dheer haysta dee wax aad ka soo saaranaysaan halahan yar hataa hadda laydin siiyo maxna waxba kama soo saari kartaan marka annagu mar walba waxaanu taagannahay dhulkeenna iyo qadiyadeena iyo deegaankeenna marnaba ka samri mayno hadday tagto dagaal hadday tagto xirfad hadday tagto dhan walba waan u dhimanaynaa dhiiggaan u horeynaa marka Soomaaliya idinku maanta wadaniyad been baa jilaysaan oo sababtoo ah idinkii baa kala qaybsan oo isdilaya oo qabiil u kala baxay oo nin walbaba maaragtay dhulkiisa intuu soo xirtay uu leeyahay leema soo gudbi karo idinkii baa israafaya hadaada marka maxaa dhul kale iyo dad kale iska qabataan idinkii baa waxa idinku sameeyay divide and conquer wax la dhaho qayb iyo xukun anagu hadda dhulkiinan qayb baan haysanaa Jubbaland baa kamid ah dhulkaas oo dhan anaga gacanta ku hayna amnigiisa anaga ka masuula caawa qofkii soo galay qofkii baxay anaga maaragtay la weydiiya marka sidee ku dhac kartaa marka idinkoo saaca inaad damacdaan inaad dad isku tashtay oo waxooda hagaajistay oo waliba idinka wax idin taraya inaad isku daydaan inaad maaragtay hadday noqoto dhanka aqoontana kulley hadda madaxweynihii Uhuru Kenyatta wuxuu ka khudbeynay qaramadii midoobay wuxuu lahaa kiiskan hadda maxkamadda racfaan baan ka qaadanaynaa kiis cusub baan furaynaa waxaan rabnaa inaan maaragtay dooda iyo waxaanad meesha la ordaysaan raqiiska ah annagu waan ka daba imaan doonaa dhulkaasna annagaa leh hadday tagto ciidan iyo hadday tagto aqoon wax kastana mar walbaba guusha annagaa maaragtay ku dambeyn doona Soomaaliya annagu Soomaali Kenyaan baan nahay annagu dhulkeena iyo dadkeena oo dhimanaynaa idinku Soomaalinimadiina haddaad ku dhimaysaan ku dhinta annaga dhulkeena iyo dowladnimadeedana waan difaacanaynaa marka Joker ninkan oo Somaliland adiga